السلام عليكم أصحابي مالي wanaagsan oo wacan walaashii Muna Amatullah in la qaybsanaysa 5 tips for Muslim moms 5 talooyin oo ku socda hooyooyinka muslimiinta waani wacdiga hooya. Number 1 start your day with a small act of worship even if it's short. Maalintaada waxaa isku dayda inaad ku bilowdid cibaado waxay doontaba ha noqotee haba yaraatee. Dikri yar, duca yar, safxad quraanada akhrisid, 2 ragcadood aad tugatid waxay doontaba ha noqotee insha Allah subaxii ku bilow cibaado barakay ku siinaysaa maalintaada rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri axabu al-acmaali ila allahi adwamuha wa in aqal axmaasha ilaahay ugu jecel yahay waa kuwa joogtada ah haba yaraadaane marka subaxii isku day 10 minut 15 minut carruurta inaad kasoo horkacdid oo cibaado yar samaysid kadibna koobkaaga kafeega ama shaaha aayir cabtid intayna soo toosin. Number 2 waxa weeye make your motherhood an act of cibaada acmaasha aan samaynayno annaga dabiici noo ah caadi noo ah sida cunto kariska nadaafada carruurta wax la barayo carruurta loo meydhayo guriga la hagaajinayo waxaasoo dhan caadaadka ah haddaan niyadda wanaajino oo ilaahay ugu dhowaanayno caadadaasi cibaado ayay noqonaysaa rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innama alacmaalu binniyaat marka aan niyeysano acmaashan aan samaynayno inaan ilaahay ugu dhowaanayno caruur wanaagsan oo muslimiina soo saarin insha allah ilaahay ajir buu naga siinayaa. Number 3 don't compare yourself to other moms hooyooyinka kale ha isbardhigin weliba social media imika waad eegaysaa waxaad arkaysaa hablo iyo hooyooyin aad leedahay oo iskugu dhacday maasha Allah laakiin qof kasta waxyaabo badan oo dhib ah oo ayuu tusayn oo social media soo dhigayn qof kasta wuxuu soo dhigayaa waxa quruxda badan oo wanaagsan kaliya marka dadka ha isbarbar dhigin haddii kale waad ku dawaqaysaa ilaahayna wuxuu yiri laa yukallifu Allahu nafsan illaa wuscaha ilaahay culays muu saarin naf ayna kari kareen marka imtixaankan aan qof kasta ku arkaysid waa wuxuu ilaahay uu ogyahay inuu kasoo bixi karo marka adigu isku mashquul dadka kalena ha ku mashquul insha Allah oo journey-gaaga la soco. Number 4 waxa weeye speak gently your words shape hearts hooyaa tahay codkaaga iyo hadalkaaga ha wanaagsanaado hana fiicnaado waayo carruurtu waxay maqlayaan saa ula hadli jirtay ma maqlayaan waxyaabahaad amri jirtay laakiin hooyo may qaylin jirtay hooyo may canaanan jirtay hooyo may kor bay u qaadi jirtay hadalka waxaasoo dhan bay xasuusanayaan marka hadalkaaga jileec ka dhig wanaaji insha Allah rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rifqigu wax laguma daro isagoo wanaajiye mooyaane rifqigu wax kasta wuu wanaajiyaa marka hadalkaaga marka carruurta la hadlaysid wanaaji insha Allah. Ta ugu dambaysa number 5 na waxa weeye nourish your body is an amaana jirkaaga waa amaano ilaahay ku siiyey ee keer garee cunto fiican cun biyo badan cab jimicso jirkaaga mentally psychologically iyo physically ba insha Allah iskeer garee oo take care of yourself. وإذنك أصحابي بارك الله فيكم for watching بصحة والعافية and إن شاء الله see you next time.